waxaan warbaahinta u cadeynayaa maanta anigoo ah xildhibaan Khadar Axmed Xaaji Yuusuf xildhibaan jeesto oo sharci darro lagu xidhay anigoo xildhibaan golaha deegaanka ah oo la soo doortay oo cod ku imi ayaa sharci darro lagu xidhay 2 jeer baa la xidhay waxa ay xidhay maamulka gobolka waxa la yiri waarin maxkamaded baa lagu xidhay Khadar Axmed Yuusuf oo ku magac dheer xildhibaan jeesto oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa si adag uga hadlay dhul daaqsimeed la sheegay in loo bedelay seerayaal dhulkaasi oo isagu degan yahay isla markaasina dusha lagaga ooday waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka oo waraysi khaas ah siinaya telefishinka caalamiga ah Cable TV ayaa ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasto ay qusayso in xaaladaas sharci darrada ah ee xildhibaanada lagu xidhayo gobolka Saraar iyadoo ay ka dhacday waxaan la arag oo la maqlin oo Soomaaliland kow ku ah waxaanahay xildhibaanka dadkiisii iyo dunyadiisii iyo xoolahoodii dhulkoodii iyo beerahoodii shabaga lagu xidhay oo ay ku xidhay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wakiilka u jooga gobolka Saraar oo la ii soo adeegsaday taliye qaybeed inuu sharci darro igu xidho baa imka biltaar ku xidhnaa dadkaas waa dadkii soo doortay iyo kuwa anigu aan ahaa taar baa ku xidhan bil bay ku xidhan yihiin halkaa waxa ku xidhay maamulka gobolka Saraar baa ku xidhay oo ku cadaaday in ciidan ay u leeyihiin oo qurba joog ah oo dangaara ay ka leeyihiin inay dalka u xidhaan xaaladda waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha gudaha ninka kula hadlaya waa xildhibaan jeesto naf iyo maalba dadkii halkaa ay soo doortay taar baa lagu wareejiyay kuwii ku wareejiyay taarka xabsiga ayay ku xidhan yihiin iminka 7 nin baa xidhan sharci darro lagu dilay maalkoodii iyo dunyadoodina bartii bay ku xareysan tahay bil baa taar ku xidhan yahay bil iska dhan wax u jeedana ma jiro wasiirka deegaanku uu ka hadlay qoraal buu ka soo saaray wax allaala wax laga qabtay ma jirto waxaa leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ninka kula hadlaya waa xildhibaan jeesto waynu iskaranana wasiirkaygii baa tahay wasiirkii deegaanka baa tahay dad iyo dunyo wixii halkaasay taar ku xidhan yahay bil baa taarkaas ku xidhnaa anigana sharci darro ayaa laygu xidhay guri jaleelo la yidhaaho waa guri degaana waa gurigaan ka soo jeedna ka qarnay aan laalay waa guriga anigu aan ku dhashay 7 ciyaalaan ku dhalay walaaladina iyaga daaba hadeerto dadkaygii dunyadaydii taar baa ku xidhan anigoo xildhibaana oo xaasaaniyad leh ayaan ilitaarkiga joojiya sharci darra god la igu riday rumaan baan ahaa halkaasaan imika daraato dowladda hoos igu soo galay barasaabkii iyo taliyihii qaybtu sharci darra igu xidheen 2 saacadood iyo barbaan god ku jiray markii dambe la iga soo daayay waxaa la yidhi dadkaas oo meesha laga ka rarataan mooyaane la sii dayn maayo kuwa xidhan ee jeelka ku jirayna la sii dayn maayo ilaa dadka taarka ka dhex saartaan oo ka dhex rartaan guryaha iyagii weeye beeraha iyagii weeye si kastaba ha ahaatee deegaankani Jaleel oo ka tirsan gobolka Saraar waxaa isku maandhaafsanaa bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo waqti xaadirkan u xidhan yihiin mas'uuliyiin iyo wariyaal walowse deegaankani lagu wado in laga dhigo seerayaal iyadoo mas'uuliyiintii soo maray gobolka Saraar ay hore u mamnuuceen deegaankani laga dhigo seerayaal waa Cali Aadan Dirar Cali Taani wararka telefishinka Cable magaalada Caynaba.